بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي معلمين تكحرين جنة الفبلال Institute of Scientific Subjects and Languages كسو دواد مادة كيمستريا فصلك Form 1 جبتر كيسا لباد قيبتي سلباد أيان قلينا هدو إلهي رادا بوغا منهجك دولدا بيشكي صدني كوباد maadada chemistry fasalka Form 1 ayaan ka bilaabi doonaa. Exercise matter walaxda is everywhere around us. waa wax waliba anaga nagu hareeraysan. sameeyaa lagu yidhi a list samee of 9 different candies ee ka kooban 9 nooc oo kala gedisan of matter ee walaxa that you encounter adi oo ka tirinayo every day waxaad maalin waliba isticmaasho. your liskaada should include waxaa waajib ku ah inuu ka mid ahaado 3 liquids saddexaadke 3 solids saddexaadke 3 liquids saddex dareere and 3 gases iyo saddex neef. lambarka labaad why sababteeba do we use aan u isticmaalnaa an objective mass culeys shay rather than intaan beddelkiisa isticmaali lahayn it is weight culeyskiisa to indicate si aan u cadayno the amount cadada of matter ee walaxda it contains ay ka kooban tahay. waxaa lagu yidhi sababteena waa ugu isticmaalnaa culeyska shay beddelkii meesha aan ka isticmaali lahayn weight taasi oo tilmaamaysa cadada walaxda ay ka kooban tahay. lambarka saddexaad name ardayo waxaad magacowdaa 2 different unities laba halbeeg oo kala gedisan other than kuwa kale lagu yidhi those in the lesson that could you be that kaasoo hawir name waxaad magacowdaa 2 different unities laba halbeeg oo kala gedisan other than kuwa kale kuwa casri ah ku qaata ma ahane kuwa kale sheega lagu yidhi that kuwaasoo could be used aan u isticmaali karno to measure si aan u cabirno mass culeyska. afar why sababteeba is objective mass culeyska shay always had iyo jeer constancy uu u yahay mid cayiman. 5 discuss ardayo waxaad ka doodaa why sababteeba the weight culeyska of an object shay in the moon ee dayaxa is lower than uu yar yahay it is weight culeyska on the earth marka uu dhulka dul saaran yahay waayahay. waxaan soo gaarnay cashir la yidhaahda properties of matter sifaada ay leedahay walaxda. by the end of the lesson ama lesson objectives aadaabta laga leeyahay cashirkaani. by the end of the lesson dhammaadka cashirkaani the learner ardayo should be able to waxaad awood u yeelanaysaa identify inaad aqoonsatid and classify aad kala soocsoodid property sifaada of materials ee walaxda as physical adigoo qaabduleed ahaan u eegay extensive midda degdega midda oo wuxuu ahay soo daahayso xaaladda extensive physical extensive iyo physical intensive ayaa jiri joogto. physical extensive waxaa yidhahdaa xaalad muxuu ahay soo daahayso iyo intensive mid degdega or chemical iyo mid chemicaleedba. physical extensive iyo chemical extensive physical intensive iyo chemical intensive labadaas way ka dhexaysaa. describe arday waxaad ifaalo ka bixisaa and differentiate aad kala soo socdaa ama aad kala qaadaa between fariqa u dhexeeyo chemical changes isbeddelka chemicaleed of matter ee walaxda and physical changes of matter iyo isbeddelka duleed ee walaxda. activity 2.3 what maxaa enables you adiga kuu suurtagelinaya to distinguish inaad kala socdid
inaad ka socdid one substance hal walax from another mid kale aad ka socdida lagu yiri. Discuss ardayo ka dood in class fasalka kaga dooda lagu yiri. And include soo bandhiga lagu yiri relevant real xaqiiqda ay tahay relevant real life adiga oo ku eegaya muxuu ahaa adiga oo ku eegaya khibradaha noloshaada ee dhabta adiga oo la xiriirinayo. The character is dabciga ama sifada that so enable us the character is dabciga ama sifada that so enable us anaga inoo suurtagelinaysa to distinguish inaan kala soono one substance hal walaxaan ka soono from another mid kale are called ayaa lagu yiraa properties sifaat. In chemistry marka aan joogno chemistry-ga we categorize waxaan kooxaynaynaa these properties sifaadaasi into two types laba nooc. waxay tahay physical properties sifaaduleed iyo chemical properties sifaat kiimikaaleed. Physical properties adiga maxaa tahay? Physical properties ama physical properties sifaaduleed is a characteristics waa dabci ama sifo of matter ee walaxda that so is not associated aan la xiriirina lagu yiri with a change isbedel in its chemical composition waxyaabaha kiimikaaleed ee walaxda ka kooban tahay sidooday ahaanayaano isma bedelayaan. Physical properties sifaadkii fiisigaaleedku are used waa la isticmaalaa to absorb si loo indheendhe ama loo baaro and describe ifafaadan loogu bixiyo matter walaxda. These properties sifaadaasi include waxaa ka mid ah appearance muuqaalka, texture taabashada, color midabka, odor uduga, melting pointing bardhalaalka, boiling pointing barkarkarka, density cufnaanta, solubility milanahaanshaha, polarity ahaanshaha and many others iyo qaybo kale. They are ayagu two kinds laba nooc waaye of physical properties ee sifaad duleeda. waxaa jira lagu yiri laba sifaad duleed ayaa jirto. Intensive properties waa sifaad degdeg ku dhacdo. These are kubaani a physical properties waa sifaad duleed waa which taasoo do not depending on aan ku tiirsanayn the amount cadada of the substance present ee walaxda joogta lagu yiri. Examples tusaalooyin of intensive properties ee sifaada degdega. Intensive properties iyo example kida ayaan fiirinaynaa. Color waxaan ka fiirinaynaa midabkaan ka fiirinaynaa. Aluminum birta aluminum is gray waa griija lagu yiri in color midabkeeda. Tasty dhadhanka. Lemon juice cabitaanka leemada citric acid ayaa ku jiro is a sour dhadhankeedu waa dhanaan waayo lagu yiri. Melting point bardhalaalka oo kale. Aluminum waxay leedahay a melting point bardhalaal ayay leedahay of ay gaarayo 660 Celsius ay gaarayo. Boiling point barkarkarka. Water biyuhu waxay leeyihiin boiling point barkarkar ayay leeyihiin of 100 centigrade ama 100 Celsius. Density cufnaanta oo kale. Water biyuhu waxay leeyihiin density cufnaan ayay leeyihiin of ay gaarayo 1 gram per mole ayuu gaaraya. Leicester cinjarka oo kale. Metal is birtu waxay yihiin lagu yiri lustrous oo kuwa aad u adag. Shiny ama kuwa aad u ifaalo yiri. Hardness adkaanshaha. Diamond is the hardest substance waa walaxda ugu adag now ee la garanayo. waayahay extensive properties sifaada aan degdega ahayn. These are physical properties kuwaana waa sifaad duleedu waa that are depending on ku tiirsan the amount cadada of the substance ee walaxda present ee joogta ama meesha laga helayo. Example tusaale ahaan of extensive properties sifaada duleeda ee muxuu ahaa aan degdega ahayn include waxaa ka mid ah mass culayska ka mid ah volume mugga ka mid ah length
dheerka ka mid ah, heat kulka ka mid ah ama kuleelka ka mid ah, capacity awoodda ka mid ah, etc iyo waxyaabo kale oo mid ah. waayahay physical change isbedel duleed. physical change isbedel duleedku is a change oo isbedel in the state ee xaalada in the state of matter xaalada walaxda or ama properties of matter sifaada walaxda without changing iyadoo aan isbedelaynin its chemical composition waxyaabaha kiimikaaleed ay ka kooban tahay. examples tusaalooyin of physical changes isbedel physikaleedku waxaa ka mid ah melting dhalaalka ka mid ah, freezing barfariisiinka ka mid ah, or ama changing isbedelka size cabirka ka mid ah, or shaping muuqaalka ka mid ah. physical changes isbedel physikaleedka ama duleedku which kuwaas taasoo akar dhaca when markii the appearance muuqaalka of the substance walaxda changes ay iska bedesho, but laakiin chemical waxyaabaha kiimikaaleed the substance walaxda ay ka kooban tahay is the same waa isla midkii. haddii waxay isbedelaan laakiin physical duleed ayaa isbedelay mooyaane ayada waxyaabihii original ay ka samaysneed isma aysan bedelayn. idaalsoo xitaa akaas waxaa dhaco when markii substances walaxdu are mixed lagu qaso oo ama dissolved lagu milo, such as sida mixing salty in cusbo lagu dhex qaso mise lagu milo ama water biyo cusbo in laisku qaso. physical change isbedel duleedku wuxuu yahay reversible change waa isbedel la soo celin karo taasoo does not involve taasi aanan ku lug lahayn lagu yidhi changes isbedelka it is matrix chemical mega waxyaabaha kiimikaaleed ee walaxda ka samaysan tahay oo chemical properties sifaad kiimikaaleedku. for example tusaalahaan common changes isbedelada ugu caansan of state of matter xaaladda ay marto walaxdu waxay tahay lagu yidhi physical changes isbedel duleedka. waxaa ka mid ah butter ka mid ah oo subaga waxay isku bedelayaa butter kooda waxaa waaye solid waxaa la saarayaa waa lagu leeyahay waxaa la saarayaa dabka la saarayaa waa la dhalaalinayaa kadib dhalaala wuxuu noqonaa butter melting wuxuu isku bedelaa dareere iyo isku bedelaa butter sidiisi waaye maadaama adka ahaa wuxuu isku bedel dareere laakiin muxuu ahaa waxyaabihiisii originalka ahaa ee chemicalka ahaa wax isbedel ah kuma dhicin laakiin waxaa isbedel ku dhacay muxuu ahaa qaab duleedkiisu solid oo ahaa adka ahaa wuu dhaganaa waa la dhalaaliyay dareere noqday. waxaa ka mid ah ice core barafka ka mid ah ice core barafka adka soo qaad biyo kuri way dhalaalaysaa ugu dambeyn ama buraxda dhig way dhalaalaysaa kadib meesha waxaa ka soo baxay waxaa la yidhaahdo meltis adka ahaa asaga solid noqday haddana waa la fariisiin karaa waa la soo celin karaa. waaya maadadeena chemistryga fasalka form 1 jabtarkiisa labaad intaan ayaan ku hakinaynaa. intaan cashirka kale idinkaga kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.